guusha waxaa keena dadaalka wanaagsan. Guushu waxa ay ku xiran tahay hadba sida uu qofka u raadiyo. Dadka badankoodu siday guul u raadinayaan marka dambe waxa dhacdo inay nolosha isu dhiibaan kadibna in lagu daryeelo sadaqo oo waxay noqdaan kuwa dhibanayaasha fikradaha taban waa kuwa aan weligood awood u yeelan karin inay xoog saaraan hadafkooda. Isu taga waxaa loola jeedaa guul maxaa yeelay waxaad si fiican awood ugu yeelanaysaa inaad naftaada xukuntid oo aad maskaxda dhex gasho. Waxaad si aad ah ugu dadaashaa inaad sii kordhisa fursadahaaga guusha. Kii aan isagu isxukumin ma guulaysto. Qofka tilmaami kara tamartiisa isla markaana u qabta shaqooyinkiisa hab taxaddar leh ayaa ah kan isxakameeya. Shaqo kasta iyo ficil kasta oo aad si sax ah u qabato waxaad ka heli doontaa awood aad ku maamusho kuwa kale. Markaad naftaada xakameyn karto ogow inaad dadka kalena maamuli karto. Waxaad horumarin kartaa dartaaranka ka dhigaya mid weyn. Tijaabi isku daygaaga iyo awooddaada siyaabo kala duwan ilaa intaad ka helayso yoolkaaga. Isla marka aad go'aansato inaad wax qabato ku dhaqaaq adigoo ku dhiiranayo inaad ku guuleysanayso. Markaad barato sida loo ururiyo loona xoojiyo fikirkaaga waxaad xakameyn doontaa hal abuurka maskaxdaada ku jiro. Sidoo kalena waxay ku noqon doontaa caawimaad aad ku qaabayso jawigaaga jireed. Noqo sayidka duruufaha iyo hoggaanka boqortooyadaada. Guushu waxay ku xiran tahay dadaal si fiican loo xoojiyay. Wax badan oo aad maanta qabato waxaad ka heli doontaa awood aad ugu adeegto xalinta dhibaatooyinkaaga barrito. Shaqo walba oo aad qabanayso u qabo si sax ah oo aan hagar ku jirin, waayo shaqada siday tahay loo qabto waxay ku siisaa karti aad ku qabato shaqooyinka waaweyn ee barrito. Waxay sidoo kale suurtagal kaaga dhigi doontaa fulinta qorshayaasha waaweyn. Wax walba kula xiriir adigoo dareensan inaad u adeegsanayso dhammaan awoodda kugu dhex jirta si aad ugu guulaysato. Weligaa ha u fikirin siyaabaha dadka daciifka ah ama buka ay wax u qabtaan. Had iyo jeer u fikir qaabka dadka guulaysta wax u sameeyaan. Waqtiga firaaqada ku qaado oo ka fikir qorshayaasha adag ilaa aad ka hesho xalkooda. Ninka u maleeya inuusan waxba samayn karin weligii ma soo kordhiyo wax cusub, balse kan fikradihiisa soo bandhiga una bedela ficil, niyadiisana ka dhaadhiciyo waan karaa oo waan gaari doonaa halkaan higsanayo hawaashi uu helaa. Haddaba waa maxay farqiga? Ka fikir cad, sababtoo ah ninka isticmaala ereyada macquul ma aha wuu ku fashilmi doonaa. Iskiina iskuma caawin karo. Ficilku wuxuu la mid yahay natiijada dabiiciga ah ee fikirka adag. Ku fikir, dadaal iyo ficil inta kale iyaga iska hagaagi doona. Fikirku waa shayga ugu weyn dunida. Si aad ugu guulaysato riyadaada rumayso ereyga guul. Dhibaatooyinka ayaa si dhaqso ah u dhalaalaya markuu qofku muujiyo geesinimo. Hal nin oo geesi ah ayaa dabka u shidi kara ciidan dhan maxaa yeelay geesinimadu sida fulaynimadu ayay faaftaa. Marka hore waxaad si cad u sawirataa waxa aad doonayso, kadibna waxaad xoogga saartaa helitaanka shayga aad diiradda saartay. Rumaysi buuxda u yeelo si damacaaga u fulo. Rumayso oo sheeg wax walba oo dunida dusheeda saaran in la heli karo. wax dan ahna ha ka gelin mowduuc walba oo ka baxsan wixii aad adigu diiradda saartay, waayo waxaad doonaysaa inaad kasbato waxa aad jeceshahay oo kali. haddii sida saxda ah aad xoogga u saarto waad heli doontaa digniin. weliga hamoodin inaadan guulaysan doonin, xilli walbana maskaxda ku hay ilaa himiladaadu isu beddesho mid dhab ah. waxba ha ka fikirin sida saxda ah sida wax aan jirin gabi ahaanba, waayo waxaan arki karnaa oo kaliya waxay horay ugu jiray dunida. laakiin ogow dhammaanba isheennu waxay qabato inay horay ugu jireen dunida ruuxiga ah. aragtidani waa aaladda kaliya ee maalin ku soo muuqan doona hadafka dhabta ah. waa haddii aad daacad u noqonno himiladeennu. weliga ha u ogolaan in qof kale fikirkiisa saamayn kugu yeesho, waayo isagu ma sheegi karo waxaad samayn karto iyo awoodda aad ku samayn karto. kuwa kale waxay leeyihiin awood kaliya marka loo eego awoodda aad siiso. ha u ogolaan naftaada in wax kasta lagu soo daro ama lagu soo lifaaqo. taas micnaheedu waa in aad adigu awood la'aan tahay. markaad fiirinayso wax ka baxsan awoodda naftaada iyo farxaddaada, waxaad muujinaysaa wax aan ahayn naftaada dhabta ah. waxaad u malaynaysaa inaadan awood ku lahayn nolosha meelaheeda qaarkood, ha ahaato dadka aad la nooshahay ama xaaladaha aad ku sugan tahay.
laakiin waxaad awood ku yeelan kartaa aag walba iyo heer kasta. kaliya waa inaad u isticmaashaa si kala duwan. waxaad si dhaqso u arki doontaa in waxa ugu weyn ee la dhammaystiraya ay tahay fajignaanta maskaxda. haddii fikrad aad la timid kuu shaqayn weydo hal jid, isku day inaad kaga shaqaysiiso jidad kale, waayo waxaa jiro wadooyin badan oo aadan isticmaalin. haddii aad ku sii wadid waad ku guulaysan doontaa ugu dambayntii. qalbijabe weligiis kuma guulaysan karo marwo cadaalad ah. weligaa jawaab ha u qaadan maya, waayo ereyga maya waa xarafka kaliya ee u fudud afka aadanaha. markii aad wax u baahato adigoon isdaciifinayn u weydiiso si awoodi ku jirto, waayo daciifnimadaadu waxay awood siisaa qofka aad weydiisanayso. awoodda xoog saaridda waa xoogga maskaxda. waxaad xoogga saartaa wakhti walba inaad tidhaahdid waan karaa, anigu waan karaa, waan doonayaa, waa inaan sameeyaa. fajignaanta saxda ah waa xaalad xasilooni maskaxeed ah, halkaas oo ay ka jirto nabad xagga maskaxda ah. meesha ay ka jirto wada noolaansho waxaa yaalla nabad. nabaddu waa furaha nolosha wanaagsan. haddii aysan nabad jirin, halkaas waa sidii meel ay ka guureen intii garaadka u saaxiibka ahayd. fajignaantu waa inta u dhaxaysa miirka iyo maskaxda. u fiirsashadu waa qayb ka mid ah diiradda joogtada ah. waad u fiirsan kartaa si fiican marka tamartaada maskaxda la sii daayo. taasi macnaheedu waa maskaxdaada ayaa ku cusub shaqada, maxaa yeelay waxaad xallisay waxyaabo kale taasoo u baahnayd in la dejiyo. diiradda joogtada ah ee shaqada waxay daba socotaa laxanka xiisadda, nasashada iyo xoog saaridda. weligaa ku shaqeey hirarka inta u dhaxaysa fajignaan iyo isugeynta guud. kaxee baaskiil marar badan maalintii si ay kuugu ahaato jimicsi jireed. ujeeddada laga leeyahay isku kalsoonaantu waa furaha awoodda korarka ka jira wax kastoo maskaxda. markaad si joogto ah xoogga u saarto, wakhti yar kadib waxaa dhici doonta in guul aad gaadho. inaad miir qabtid ood maskaxdaada ku hayso hal shay waxay caddaynaysaa inaad fajignan tahay. u fiirsashadu waa aamusnaan. maskaxdu waxay xidhaa wax kasta oo kaa jeedinaya waxa aad diiradda saartay. aamusnaantu waa waxa keliya ee abuura fikir lagama maarmaan ah oo maskaxda gariiriya si midka aad adigu tahay aad u ogaato. aroor walba oo aad toosta u mahadceli allaha weyn ilaahay oo lagu shukriyo. waxay keentaa inuu kuu kordho nimcada aad hadda haysato. markii hal howl ah kuu qabsoonto u gudub tan xigta si awooddaadu u korodho.